wafdugun Baydhabo hadeeri oo ku dareeray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waliba hogaamiyay ku-xigeenka xafiiska hay'adda caafimaadka adduunka ee Soomaaliya iyo madaxa barnaamijyada hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waliba garoonka diyaarado Baydhabo waxa ka dhawaayay madaxda iyo shaqaale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kureedna waliba booqdana xarunta caafimaad ee DMO meelaas oo adeegyo caafimaad lanka fuliyahay bulshada walibana ayaan ku horgaleena sidii aan dareerta adeegyada caafimaad ee shil duwan ee la fuliyahay xarunta waliba saasato booqasho ka saadana isbitaalka dhexe ee gobolka Bay walibana kormeerana qaybo uu ka kooban yahay isbitaalka walibana dhaqaatiirta meelaasay ka horgalaasa iyo ku dhagan sideena warbixin ka saabsan adeegyada isbitaalka fuliyo bulshada iyo baahida caafimaad ee ku jirta isbitaalka dhexe ee gobolka Bay wafdiga ku dareeray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo safarsho magaalada Baydhabo waliba ka gabagabeeyana kulan iyo xarunta madaxtooyada Baydhabo ka la qaadadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiasiis Laftagareen walibana iyo kula hadalena tayeeyowkii koranqaadowka adeegyada caafimaadka gobolka iyo guutaan deegaanada Koonfur Galbeed walibana markii kulamada iyo waliba hoolo kala dhamaadeen saxaafadda faahfaahin kooban siiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Xuseen Maxamed Daahir maanta waxaan soo booqday wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka regional director-ka WHO hay'adda caafimaadka adduunka iyo polio officer oo Dr. Malik Lahay waxayna booqdeen booqashadooda koowaad waxay ahayd xarumaha caafimaadka inay soo booqdaan kadibna ay la kulmaan madaxweynaha ee kaga hadlaan baahiyada ee qabaan South West State waxaan ku horumarnay xarunta caafimaadka oo MCH kala dhaho horseed waxay kala kulmeen baahiyo caafimaad fara badan waxayna balan qaadeen inay buuxin doonaan caafimaadkaas hoos u dhac uu ka taagan yahay waxaan u gudubnay isbitaalka weyn ee Bioregional Hospital waxay booqdeen qaybta ilmaha iyo qaybta bukaan jiifka ilmaha iyo qaybta bukaan socodka ilmaha waxayna booqdeen sidoo kale qaybta qaliinka isbitaalka waxay kaloo booqdeen cold chain-ka isbitaalka waxay kaloo booqdeen qaybta nafaqo quudinta isbitaalka ugu dambeyn waxaan ku soo khatinnay qaybta ICU loo yaqaano oo dadka marka xaalad degdeg ay ku jiraan lagu caafimaadkooda lagu fiiriyo baahiyo aad u ballaaran ka jira isbitaalka ma dhameystirno service-ka isbitaalka uu qabanayo laakiin waxay noo balan qaadeen inay buuxin doonaan baahiyaha ka taagan caafimaadka isbitaalka guud ahaan isbitaalada oo referalka ah ee gobolada Koonfur Galbeed oo dhan waxaan la kulannay ugu dambeyn madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu noo balan qaaday inuu dhaqaalaha ugu badan u gelin doono caafimaadka iyo waxbarashada uuna hortooda ugu cadeeyay in ayagana ay u baahan yihiin qof wax investment bixiya kadib ay kaalmeyn doonaan ayagana waxay noo balan qaadeen WHO inay cover gareyn doonto universal health coverage-ka Soomaaliya oo idil khaasatan Koonfur Galbeedna ee maxallahay kaalmo buuxda ay ka geysan doonaan si loo gaaro universal health coverage dhameystiran aadan u mahadsantihiin wafdugun ku dareeray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ya waliba safarsho magaalada Baydhabo iyo ka kooyanka ka gabagabeena kulan iyo la qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiasiis Laftagareen oo yoon ku hadaleen ujeedada ka muhiimsan oo yoon kooyan magaalada Baydhabo markaan koreeyay oo wafdu ku dareeray hay'adda caafimaadka adduunka iyo kooyan magaalada Baydhabo wafdugun ya waliba qayb ku noqday qorshayaal dareeri oo la kafado intii la hormari bahda caafimaadka guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Cabdinaasir Musharraf telefishankii raadiga Koonfur Galbeed Baydhabo